qoonsiga aqoonsaday wasaaraha yuhuudda Netanyahu maamulka Somaliland علينا أنا قاعدنا Soomaaliyeed waa wax aan soconaynin oo dhalanteeda oo beena Somaliland waa maamul ka tirsan Soomaaliya ma garat waa gartay waana dhibaato mantiqada iyo geeska Afrika loo soo jiida ma garat waa gartay aan arkayna xalay maamulka xuutiyiinta oo hanjabay oo dhaha hadii yuhuudda ay ka furtaan saldhig Somaliland oo duqeynina marka xalayna Somaliland intay ictiraaf raadinayeen albaabka naarka gargaraaceen waxa oo hadda sida caalamka ku soo horjeesana lagu arkaa waa midar waa gartay dadka iyo mas'uuliyiinta ku sugan guud ahaan maamulka Somaliland waxay sheegeen in markaasi ay hadda ka dib yihiin dawlad madax banaan sidoo aragtaa aqoonsigu kama jiro yuhuud iyo adduunka dawladda kale dawladda aqoonsanaysa waa la yaqaan nidaamka loo maro aqoonsigu wuxuu ka jiraa inay soo aadaan maamulka dawladda federaalka Soomaaliya dawladda dawladda geeysa hadda waxa ugu dambeeyay Suudaan ka go'day waxaana ka shaqeeyay inay ka go'aan dadkaas oo goon-goos ka rabay kadib dawladda Suudaan ay u yimideen waa kala muwaafaqadeen waa kala dooreen kadib askarad saas ku yimid madar waa gartay marka nidaamka aqoonsiga yuhuudku siinaysa iyo Itoobiya iyo Afrikana la kala beeyna hadii hadda Somaliland ay Soomaaliya ka baxdo waxay noqonaysaa in maamulka Tigray oo Itoobiya ka baxo maamulka Tigray oo Itoobiya ka baxo xaaradda sidoo kale ormada sidoo kale waana waxa soconay ma garan waa gartay marka waxaad leedahay waxaan ay wadaan wax soconaya ma baahanba waa dib la isku soo jiideen wax kala ma ahan in macnaha dadkoodii dalkoodii loogu kala dirro la isku soo jiideen ma ahayna wax socona ma ana naga daalan ka shaqeeyo waa gartay fanaaniin dhowr ah oo uu ka mid yahay Maxamed Saciid Biike iyo Hodan Cabdiraxmaan waxay sheegeen in marka ay soo wadaan suugaan ama heeso kala duwan oo ay u qaadayaan ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu balka waxba kama duwan heesii hore كون جنوا لو كلا سافر في قاعدين عادوا ملين عادوا كذا محمر حاجة كده بس واجن وماشي اللي ما يعني كرتي ماشي اللي ما يعني دي كانوا علينا أولا بحرق لا الجنسية مثل هذه عدول في هذا markii yadin diidan qolada jibina markay xukunka Soomaaliland qabsadeen aad sujuudi kalaan masatay aad tirjaa ka baxay kitaabkii iyo adduunka masaajid marka ninkaas waxa laga warsanaa malaba ninkaas baas ku xaar marada waayay xalay banaabaxyo waaweyn ayaa waxa ay ka dhaceen gudaha magaalada Muqdisho bal banaabaxyadaasi ka waran ay ku muujinayeen dadka shacabka reer Muqdisho dareenkooda aad iyo aad u soo dhaweynaa dadka reer Muqdisho banaabaxyada ay muujiyeen min farqama qodno dadka bisha insha Allah ustaad Muqdisho وعدنا لقى ديك دونا من ده هدي أدول فكتم أو أدول كدم أو فكتم كأسي حلب كيسة إن أو يرسلنا لنا قنصة فيديو كول وحاسو حلق بالي كرماهن وعلى الصباحية وحنا قبل أدول سمار إن بقول دم أي شيء لا بش الصباحية لو هرتها إذا مقطعنا مريض كحلو دم ده وحاس حلق مجرم راي حاجة دبلوماسية وحقولي سكي وحرا إن طلعوا الله هذا شعبك جراها لميزايو nimankan siyaasiyiinta talaagada oo guuldoosadkaana runta loo sheego waxa aqoonsi xaggaas idinkaga ma jiro waa arkaysay magaalada Dooran ee gobolka Awdal shacabkiisa isku soo baxna baxeen ay ugu soo horjeesteen sidoo kale gobolka Sanaag gobolka Tool marka Burcay Hargeysa hadii aqoonsi rabaan waa la fasaxahay ayagana dadka shacabka meesha ku nool Soomaaliya ay caburin iyo awood u sheegan waayay naga kale waxa wili aan ka hadlinba arinkan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay wado madaxda maamul goboleedka dalka sida Puntland iyo Jubbaland Dani iyo sidoo kale Axmedow xalay waxa ama shalay waxa warqad soo saaray taliye hore ah hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliyeed NISA Mahad waa Fahad Yaasin Xaaji Daayir waxa uu sheegay in wili uu shaki uu ku jiro waxa uu dhanka kale markaasi eedan dusha uu ka saaray madaxweynaha Puntland Said Abdullahi Deni uu markaa uu farta ku fiiqay in markaa uu qayb uu ka yahay dadka wadaba horinta colaada iyo in markaa Somaliland ay gooni u goosatay isaga uu ka yahay bal ka waran maxaa diiday ay isleedahay in madaxdan ay ka hadlaan arinka hadda oo ah in markaa loo midoobo la rabayba
nimankaas waa sheegtay waa maamul goboleedyo oo baarti kamid ah dowladda Soomaaliya dowladda Soomaaliya matasho wasaaradda arrimaha dibadda matalo madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh matalo oo ka hadla arrinkaas balse ayaga inay ka hadlaan ahayd laakiin sida la rumaysan la ogyahay waa niman adduunka u shaqeeyo adduunka maamulka imaaraadka oo muddo adeegsatay in wadamada muslimiinta ay burburiyaan marka hadda dani wuxuu leeyahay madaxweynaha Soomaaliya u sharaxanahay wadankii inuu kala gooyo ku faraxsan yahay inkastoo ay simada iyo ilmada maamulka Puntland ay ka hadleen ay dhayaan waxaas wax soo jeedna laakiin waa arkayna wasiiradiis kuwa kamid ah sidii jooxo kale oo dhahayo anaga ku soo xignaa marka waxaa leenahay ciyaalka xaafadda waxay dhahaan qalbigaa say marka qalbigiisa oo nafsiya calooshiisa wax ku jiro waxaana ilaahay Soomaaliya jecel yahay markuu oo ninkaas oo doorashada u dambeysay oo codadka musharaxiinta ugu horeeyay ilaahay laakiin uu Soomaali jecel yahay oo ka heliyay hadduu wadanka xilligan qabsaday ka war laba mar ilaahay waa jeclaaday Soomaaliya markii ay African Unionka ودي كسر جدملات وفيها جهالا هذا اللي أنا حالات وما مع إن كلا حالة سمع لأنه كثير لذوا ودول يا نكاس دول كذي إمارات كدول كذي عامل قوة واحد جون مرة ضد دي حتى خلان هذا الكل مالدر جاري كويس سنة تردب أزلات دي زيادة ورقتها دب وأكلوا شيء لا دول كذي هذا dadka Soomaaliyeed iyo Djibouti Soomaaliya oo dhimo male aslee ninku xiiso abuuray Hargeysa marka soo u arko waa inuu wadin ku diiday buuqan ka sheegay taas islaamaan wax hadda oo soo kordhinaa male way aad ma santahay